gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Awdal iyo Selel in ay u diyaar garoobaan oo ay meel uga soo wada jeestaan damaca qallafsan ee dawladda Itoobiya iyo maamulka muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliland waxa uu salka ku hayaa cadaawad duugoobtay iyo damac soo jireen ah sida uu dhigayay heshiiska ay sheegeen Itoobiya iyo Soomaaliland in ay ku dhaafsadeen aqoonsi iyo 20 kiiloomitir oo saldhig military ah ma aha mid ku saabsan in kiro ahaan looga kireeyo Itoobiya waxaan u aragnaa lahaansho iyo in lagu wareejiyo dhulkii aan anaguba ka gaajoonay in lagu wareejiyay Amxaaro iyo Oromo anaguna ku dul gaajoonano بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta oo taariikhdu tahay bishu 7 bishii koobaad 2024 waxa halkan isugu yimid dhalinyarada gobolka Awdal gaar ahaan dhalinyarada ka soo jeeda xeebaha gobolka Awdal ee degmooyinka Selel iyo Luqaya gaar ahaan dhalinyarada halkan waxay u badan yihiin degmada Luqaya marka halkan maanta waxaan soo taagay arrin muhiim ah oo dhawaan kulli lala wada socdo arrinka badda Luqaya la bixiyay marka baaq baan halkan marka koobaad soo jeedin doonaa marka labaad digniin baa ku xigi doonta dadka marka u dambaysa dhalinyaro badan baa iga dambeeyo hadalka qaadan doona halkan isku wada dareen baanu nahay kulli waxaanu nahay u bixi wadanka waana xilligii loogu xooga badnaa maanta kulli waxaan doonaynaa inaan caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed cid kasto danaynaysa arrintan soo cusboonaatay inaan la wadaagno xogahan aan marka aan sugu niminay marka koobaad waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Awdal iyo Selel in ay u diyaar garoobaan oo ay meel uga soo wada jeestaan damaca qallafsan ee dawladda Itoobiya iyo maamulka muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliland ay ku rabaan in ay ku dhacaan hantida guurtada ah ee ummadda Soomaaliyeed waxa aan ugu baaqaynaa culimada aqoon-yahanada ganacsatada cuqaasha waxgaradka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolada Awdal iyo Selel in ay naftooda maalkooga iyo maskaxdoodaba u huraan difaaca dalkooga iyo diintooda sidoo kale waxa aanu cadaynaynaa in damaca Itoobiya uu ku koobnaan doonin degmooyinka Luqaya iyo Sayla uuna ku fidi doono dhammaan xeebaha Soomaalida amba Somaliland sida Berbera Bulaxaar Xiis Maydh iyo kuwa kale oo fara badan waa maxay hadaba damaca Itoobiya sida aynu wada ogsoonahay Itoobiya xeebaha badda cas ma aha mid hadda soo bilaabmay damaca ay ka leedahay waxa uu salka ku hayaa cadaawad duugoobtay iyo damac soo jireen ah sida uu dhigayay heshiiska ay sheegeen Itoobiya iyo Soomaaliland in ay ku dhaafsadeen aqoonsi iyo 20 kiiloomitir oo saldhig military ah ma aha mid ku saabsan in kiro ahaan looga kireeyo Itoobiya waxaan u aragnaa lahaansho iyo in lagu wareejiyo dhulkii aan anaguba ka gaajoonay in lagu wareejiyay Amxaaro iyo Oromo anaguna ku dul gaajoonano hadaba waa maxay waxyaalaha ka dhalan kara hadii uu u rumoomo damaca Itoobiya hadii Itoobiya hesho dhulkeena waxa khasab ah in uu dabargo'o isirka Soomaaliyeed meeshana ay bedesho isirka Amxaarada iyo Oromada sidoo kalena waxa ummadda Soomaaliyeed wajihi doonaan xasuuq gumaysi barakicin aan loo meeldayin waxa gabi ahaanba si kama dambaysa u doorsoomi doonta diinta dhaqanka wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed ugu dambayn waxaanu cambaaraynaa oo aan ku wargelinaynaa ummadda Soomaaliyeed in maamulka aanu waxba aan markii horena noo tarin sidaan ogtihiin degmada Luqaya intaas oo jeer ayaa la isku sawray waxa isku sawray madaxweynayaashii ka horeeyay oo Siraaya ku xigo
waxaas ku sawiray Muuse Biixi intaasoo madaxweynaha dekada Luuqyaas ku sawiray haddii ay wax qabanayaan iyaga wax qaban lahaa may haddii ay ciidimaal gashanayso waxay ahayd in loo keeno ciid aan jaarkan iyo dadkan Itoobiyaanka cadaawadu naga dhaxayso aan hayn sidaad wada ogtihiin Itoobiyaanka inteena halka joogtay ka ugu yar waa ninka awowgii walaalkii uu ku dhintay oo shalay un bay 77kii waqti fog ma ahayn inaga aabiyaasheen ba ka dagaalamay amba awyaasheen ba ka dagaalamay marka suuragal ma noqon karto saadaraadid waxaanu ku wargaleynaa ummadda Soomaaliyeed iyo maamulkan fadhiidka ee Soomaaliland ee Muuse Biixi uu hogaanka u hayo in aan hantida dhulkayaga aan lagu bixin karin aan la siin karin Itoobiya lana kareyn karin lana la qaadan doonin haddaba go'aankaygu waa maxay ka dhalinyar ahaan annaga oo ka duulayna qoraalka kor ku xusan dhalinyarada gobolka Awdal iyo Selel waxa ay diyaar u yihiin in ay qalinka dhigaan oo ay qoriga qaataan haddii arrinkaasi sida lagu fuliyo maanta waxaanu ku jirnaa marxaladii aan ugu xoog badnayn haddii arrinkaas sida lagu sii wado waxaanu diyaar u nahay inteeda ugu badan halkan waxaanu u niminay inaan waxbarashaan u niminay qalinka iyo waxbarashada waanu dhigi doonaa arrinkuna wuxuu isugu biyashuban doonaa inaan dhulkii u dhaadhacno inaan qoriga qaadano inaan difaacno waana xaq diintaana nafarasa inaan dhulkayga difaacno